وباعنا سدع سنة البيوت جنب كان يلقطنا يعمونيس وصلاة أن كنت كوان وكسعوان هذا الإلهي كان هذا من فرح سنة وأنا واحد لنا هؤلاء يقبتين راجت على يسارك داوال يقرأ البدن المزيك الحمد لله حساس يكبرنا إلهي كرجال وأنا كمان سنين waxaan sheegayaa kalkaal waa mahadsantahay meeshii ay hadda la kooreen noogu yimaadeen daawada ay noo soo qoreen waa mahadsan yihiin hadduu alla kuu roonaya waan uga mahadinaynaa inay saasoo kale wax noogu qabtaan hadduu alla kuu roon yahay anakana waa hadduu alla kuu mar walba waan xariiraynaa waan ogaanaa shaqada ay qabteen waan ogaanay ilaahay hadduu nabad allah siiyo ilaahayna hadduu alla kuu raalli ka ahaado hadduu alla kuu saasaynu ku mahadsan yihiin دخاتير بدن صدور ميل غسري وراقي قبضة أنا ما داودي وراي عم قويتي ما بدر أنا ما كنت دخاتير سجديد وقويتي أو بدر الشيء السريع بس أنا السير يوم أنا صلاة باو على كل سنة لكوي ما شاء الله ما كنت أنا فرح سنة إلى إلى أفضل في إلى يسي إلى فرح سنة هذا وين الله سبحانه وتعالى حمده سكدي حنوم هذا علينا سبحانه وتعالى وصادري أجاري ولبا مع دخاتير وجانب أما سكر دام ورابطة عربية runtii taas waxay muujinaysaa ka damqashada ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo in laga qabtiro ummadaas baahidooda oo dhinaca caafimaadka ah marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waa fursad maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka gobolladan degan ma awoodi karaan intooda badan isbitaalada inay u aadaan dibadda ma awoodi karaan marka in guryahooda loo keeno oo xaafadahoodii loo keeno oo cudurradii ay ugu safri lahaayeen meel fog ay ka helaan dhakhaatiirtii magaaladooda ay ka helaan waa wax aad iyo aad u fiican oo runtii wax loogu mahadceliyay ciddii ka shaqaysay arrintaas ama fududaysayba loogu mahadceliyo u baahan waaye waan ugu mahadcelinaynaa weliba waxaan leenahay sii kordhiya ku dadaala waxaan dhihi lahaa ama aan ka codsan lahaa isbitaalka kalkaal dhakhaatiirta uu soo diraayo inuu joogteeyo ama fatra bacda fatra yani markuu soo diro ayaan joogaan haddana lagu soo laabto dadkan la ballamiyo oo la yidhaahdo hayo maxaad kala kulunteen qofkii wax kala ziyaada sheeganaya dadkii kale oo ayaantii hore aan ka faa'iidaysan si ay uga faa'iidaystaan